بانا لو جري هوسته waa laga jiray meel u bad qabta looma yaqaan wax allaale wixii la badakar ka sareeyay markii sida loo dilay waa meel geed baa hoosti laga helay waa lagu dilay saas inta lagu jarjaray waa laga soo qaaday geed qalax lagu dhooba sida beerka lagu dhoobo markii loogu riday waxaan helay sida inuu raadinayay raadkeedii u waday argaan la joogtay sida inuu raadinayay toban habeen qaar ka sarreeya labada kilkilo wixii ka sarreeya ayaa mariyo gudbay inta kale waa qaaway marka waxaan u yeeray dadkii inkastoo waayihii ugu dambeeyay ay soo badanayeen kufsiga loo geysanay gabdhaheena Soomaaliyeed runtii wuxuu noqday mid faraha laga qaada taasoo dawlad iyo madax aan waxba laga qaban runtii sheekhinta ka hadlay ayaa tira male sidoo kale digniinaha loo dirayo ayaa runtii tira dhaaf noqday sidoo kale daawadayaal dilkan iyo kufsigan la isku daray gabdhaheena Soomaaliyeed ayaa ku soo badanayay geeyigeena Soomaaliyeed meel walba oo dadka Soomaali jireen runtii dhacdo ka xanuun badan ayaa ka dhacday taasoo uu nin ku dilay inaan yar oo 14 jir magaceeda lagu magacaabo Hodan Saciid oo isla kun dhaqan Somaliland gudaha Somaliland gaar ahaan gobolada bari hadaba dhacdadan oo xanuun leh ayaa waxa ka sheekay aabaheed sidoo kale wuxuu ka warbixiyay inantan xaggees laqta xadaradii ay ku sugnayd ugu dambeysay taasoo sheegay in uu ari u diray oo maadaama ay rilmiin yahaayeen ama dadka badanaa baadiyaha ku dhaqan hadaba saaxiib bal muuqaal ayaa niigaga diyaariyay iyo xogta rasmiga ah soo gudbin doona halkan waa channelka xog bixinta wararka saaxiib hadaad ku cusubtay ku soo bir oo taawada calaamada subscribe kambalekana ku dhufasay ku soo gala muuqaalada iyo barnaamijka aan halkan ku baahino waad ku mahadsantahay jaaqaadkaaga ee ku soo dhawaada muuqaalkeena oo fidsan hadaba dhacdadan oo ka soo noqonaysa geeyigeena Soomaalida ayaa kolba maalinba ka dambaysa kufsiga iyo jirdilka ama gowraca loo geysanay gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale kufsiga ayaa xadkiisa dhaafay oo sidoo kale inta social media laga dhex sheegin ayaaba tira lahayn laakiin si badanaa Soomaalida waxa sheegta marka kufsiga uu gaaro oo dhimasho ayuu badanaa TV-da ay la wadaagtaa laakiin inta qarsooniya ayaa xad ka dhaaftayba hadaba waxaan saaxiibal cod soo diri lahayn anagoo ah team xog bixinta wararka inaan codsi ka codsanayna gudahan maxkamadda Somaliland ugu sareysa in ay Hodan Saciid cadaaladeeda ay siiso oo runtii dadkii waalidkeeda iyo dadkii ehelkeena ay runtii cadaaladaas loo mariyo qofka dhibanaha ee ka dilay dilka u geystay Hodan Saciid runtii qoyska Hodan Saciid ayaa runtii sugaya in ay Hodan Saciid inantoodu ay runtii hesho cadaalad loo siman yahay runtii hadaba waxaan sidoo kale tacsuga diran dhammaan family-ga Hodan Saciid iyo runtii dadka aabaheeda ama hooyadeed ama dadka qaraabada ah isku dhaweyn ay ka baxday anagoo team xog bixinta wararka intaas ayaan ugu daranaa laakiinse waxaan oran lahaa saaxiib beel hadii dawladdu ay ka qabanayaan anigu markaan eega fikirkayga mala wax isdhihi tani waxa noqotay hay'ad wax siisa dadka oo runtii walaa ciribtir kula jirta gudaha hablaha Soomaaliyeed oo runtii gabdhaha ugu sharafta badan adduunka nimanka doctor xaadirkan ay joogno runtii gabdhaha Soomaaliyeed boos weyn ay kaga jiraan Soomaalida laakiinse waa udub dhaxaadka koowaad ee runtii laga taramba ee runtii halkaas oo Soomaalidu ama gabdhaha Soomaaliyeed ay ugu jiraan boos muhiim ah hadaba halkan waa kanaalka xog bixinta wararka oo saaxiib u taagan inuu mar kasta soo gudbiyo channelka xog bixinta wararka uu soo gudbiyo xogta rasmiga ee waqti xadirka taagan haddii aad hore noogu soo biirin saaxiib hadda noogu soo biir oo taabada subscribe ay ku qoran tahay like-na saar muuqaalkeena si gaadho dad badan oo kamid ah asxaabteena waad ku mahadsantahay saaxiib mar kasta la joogtaada ee waqtiga wacan ee na siisay aad nagu fiirsanaysid Allah ya ciise ayaan ku leenahay saaxiib